yaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aryaadaha kalamaan beriga waa heesta rabaahe indhageys inkaar qabe wiilkayo anoo qaldan baan ku dhalay dabeed waxaan galay jabhado dadkan soo dili jiriyo dhacbaan kugu soo korsho war waxaa hore loo yidhi hal booliyi nidhi xalaala ma dhasho canugaad qaladka ku dhashay dhacaya isbaaradana ku korisay inuu bastoolad qaato dadka madaxa jabsho kadibna isqarxiyo adaa ka mas-uula warnimayo haddaad iska hadlaysaane xilli hore wuxuu yidhi allaha u naxariistay abwaan shariif soomaali haddaan weynay welad khayr qaboo waalidka xushmeeya miyaan weynay waagii baryaba wacalna tuuriyay xaaladda hadda taagan ayuu saadaaliyay abwaanku gurbu buubaal lanki haamanka horada haantu wiima ku furdee waleeri aryamahmaadu saas mahayna waxay ahayd balaaya ninkii rara haanta ugu weyn asaa koow kala degta cabdulma waxaad ula jeedaa ninkii tiin abuurtaa tiban ma gurto war saas mahayn heestee waxay ahayd caashaqaan risoo riday aanka reesta loode sowmadiido geelaba war ma ahayn sidaa laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon war ma ahayna waxay ahayd laylay labadii walaalaa ninkii lacag lahaa weyn waryaadana waxaan dhihi lahaa laxda shiikasaar waa waxaan laabta galahayne waa midiga lilaahiya inay guurtay libintiiye soomaalay lur baan ugu dhacay talaha loo laabto ebedkay wax kastaba aan maqle laxda shiikasaar waa ii dhinneed acuudu billaah war lankamayn lijeede heestili lahay soomaalay dantaa garo areed ani waxaan idin dhihi lahaa dabeel ii duruufaan haysaa wax la laqmeel ma ku og tihiin war gudoomiyaha gobolka banaadir injineer riisow wuxuu yidhi sanadkan waa sanadkii u dambeeya maqaamka muqdisho aan raadinayni shacabka muqdisho waa inay isku duubnaadaan si maqaamka muqdisho loo helo muqdishaawi waa inay mansabkooda helaan taabidaa eeday marka gudoomiye riisow cagta ha dhigo muqdisho wax looma rabayu warkaan ugu soo qaadqaadina warnimayo hadda ka hor waxaa dhacay dad safara ayaa burcad waddada u gashay 6 gabdhood oo la socotay dadka ayay 5 ka mida faraxumeeyeen burcadii kadib markii la sii daayay dadkii gabadhii 6aad oo badbaadaa la arkay iyadoo caraysan markaasaa la yidhi maxaa kugu dhacay ma gabdhaha la faraxumeeyaad ka xuntahay markaasay waxay tidhi maxaa aniga la iiga tegey maanaan gabdhaha ka mid ahayn maxaa faraxumada iga reebay faca wuxuu qaba waa la qabaaye hadda muqdisho gabadha laga tegay maa lamid tahay aryaada ma burcadbadeeda markab soo qabsatay xaggaysa ku soo xireen dekada baydhawaa kiiriday degdeganka daayto warnimada wiil yaroo fogaan eeg la yidhaahdo ayaa saaka su'aali weydiiyey wuxuu yidhi puntland dowladda federaalku ma dowlad daris la oo madax bannaan bay u aqoonsatay maxaa jiraan ku yidhi wuxuu yidhi waftiga loo diray wasiirka arrimaha dibadda hogaaminayey gobolladana wafuudda u baxaysa wasiirka arrimaha gudaha hogaami jiray maxaa keenay sidaasuu yidhi marka siday wax yihiin buu yidhi waa macageel caloosha laga rarayaa war wiilka waxaad u sheegtaa waftigaanu wafti dowlad matalaya ma ahayna niman xaafadoodii soo booqanayay ahaayeen aryaadaha madaxweynaha cusub ee puntland wuxuu yidhi iskaashigii maamul goboleedyadu sidiisiyo u sii jira sababtoo ah in gobollada soomaalidu iskaashadaan dastuurkay ku dhigan tahay wixii khilaaf oo shakhsiyaad ka dhexeeyana shaqa ii taalla maahin war madaxweynaha cusub ee puntland maanta waxa uu shir gudoomiyey golihii wasiirada ee cabdiweligaas waxaana yidhaahdeen hawsha halkeeda ayay ka sii soconaysaa boowe wasiirada lama bedelaya miya warna miya war mahaytan madawiinagaana wililan aleema saarnay lafta gareen isnaaantin isku haysama fadaasan mayle erey caasimada koonfur galbeed ee baraawe yaka degdi mayna lahkadhow ayaga saasana heestililaye dalku ii dadshay diintiyo furgaan ee waldaneeyaw dowli ambaahanaaye war sidaas ma ahayne madageen lafta gareen hadhowaaw ay yidhaahdeen isagana waa uu fahmi waayey war hadda ka hor madaxweyne xaaf yaa inta cadaada ka tegay u dhuusamareebaade kadibna meeshuu ka tegay ayaa mid kale lagu macmalay marka lafta gareen hadduu baydhaba ka tegey ama mid kale lagu macmalaa dad jaanisgaada baa jire war
dadka alka hadaloo hay reer koonfur galbeed ma way wahadadkaas kasaase wallaahi aan laga yeelin oo billaahi laga yeelin inta la soo dhoobay ba halka naga looga keenay buu iska tagayaa soo ma kan baan dalbanayna kan baan dooranayna dadka raayay urmano suurtagal warnamada akhri sabaanka wax la yaabaa la arki doonaa baa leeyahay waxa la leeyahay xaramkii muslimiintu ku cibaadaysan jirtay ayaxa isugu tagay masaajidkii kabcada laguma dukanaa leeyahay maalmahan ayaxa lala gali waayay marka hadda waxa ka shaqeynaya leeyahay kooxo ayaxa buufiya ayaa loo diray baa leeyahay ka shaqeynaya aryaadaha aniga ayaxa saa'idaama sababtoo ah kabcad iyo mihib barakeysneed oo jooga warnimayo ayaxaas kacbada galay waa fariin la yaab leh ma la fahmi doonaa warnimayo ayaxaas leeyahay kacbada lagu buufiyay waa ahlu janna sababtoo ah xaramku ku dhinta asagoo xajinaya war hore loo yiri xaaji sooma noqday xujaa soo noqoto waxaan ayax dambe xajka u aadina ku dhacay wallahi war ayax ma ahna magaalo ku taala dalka Canada waxa buuxda fi libaxbadeed guriyihii goobi ganacsiga waa xiran yihiin ama ilmihii le ka cunin magaalada libax iska soo galay gamoon mariid leh ma waayeen war maanta waxa raadiyo kulmiyo soo booqday Sheekh Maxamed Ibrahim Kenyawi muhaadaro cajiibana waa ku qabtay galabta jimcahaana wuxuu muhaadaro ku qabanayaa hoolkii sahal hadda ciyaal siiyo dhafoor xiiran heese ay soo bandhigaada $20 ku dhiibi jirtay muhaadaradu lacag maahan iyadaana ajir leh ha ka qadin aryaadaha igaara facebookisa ku soo qortay muhaadarada sheekha gabdhaha ka qayb galaya nike up iyaysan soo marsan haday alla yaqaanin war muhaadarada sheekha walaalo walaalka cafi waaye muhaadarada sheekha hadii baad ka qayb galaasa midibkii alle kiin abuuri lahaaw mariya qafiifan la saatoy xijaabki allahna amarina qaaday saqda dhexe caawa ayaan soo gabagabeynay kulankii golaha wasiirada ee aan ku dhameystiraynay qorshaha tubaha qaranka dawladana tubaha wareershay wada furan lama arko wixii tubaha waa xiran yihiin war Cabdiraxmaan Abshkur wuxuu yiri wasiir aan weydiiyay tubaha qaranka iyo halbeegyada iyo qorshayaasha ka farcamaya wax qarashu kuma baxaan u yeelay lacag la'aan waana 1900 oo qorshe aryaadaha waxaan idin wartaa hal kutub meeqa toobiya ka leexata war halkii halbeegba meeqa qorshe ka leexata ha idinka galina ma idinka wax ku darsada arrada aryaada waxa dii lacag la'aan lagu fulinayo madada wax qarash lagu fulinayo raadinaya waxa qarash ku bixin ma qabsoomaan waryaada meesha lagu kala wada tub iyo toobiya ma taqaaniin tuur heerka soo baxday war ma taqaanid adaan qoolnaa yaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aryaadaha kalamaan beriga waa heesta rabaahe indhageys inkaar qabe wiilkayo anoo qaldan baan ku dhalay dabeed waxaan galay jabhado dadkan soo dili jiriyo dhacbaan kugu soo korsho war waxa hore loo yiri hal booliin ri xalaal ma dhasho canuga qaladka ku dhashay dhacay isbaaradana ku korisay inuu bastoolad qaato dadka madaxa jabsho kadibna isqarxiyo adaa ka masuula warnimayo hadda aad iska hadlaysaane xilli hore wuxuu yiri Allah u naxariistay abwaan Shariif Soomaali haddaan weynay walad khayr qabo waalidka xushmeeya miyaan weynay waagii baryaba wacalna tuuriyay xaaladda hadda taagan ayuu saadaaliyay abwaanku gurbu buubaal lanki haamanka horada haantu iyo ku furdee waleeri aryaamaha maadu saas ma hayna waxay ahayd balaayo ninkii rara haanta ugu weyn asaa koow kala degta Abdul ma waxaad ula jeedaa ninkii tiin abuurtaa tiban ma gurto war saas ma hayn heestay waxay ahayd caashaqaan risoo riday aanka reesta loode sawmadiido geelaba war ma ahayn sidaa laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon war ma ahayna waxay ahayd leylay labadii walaala ninkii lacag lahaa weyn waryaadana waxaan dhihi lahaa laxda shiika saar waa waxaan laabta galahayne waa
midiga lilaahiya inay guurtay libintiiye soomaalay lur baan u dhacay talaha loo laab ebedkay wax kastaba aan maqle laxda shiika saar waa idhinet acuudu billaah war lankamayn lijeede heestiri lahay yaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aryaadaha kalamaan beriga waa heesta rabaahe indhegeys inkaar qabe wiilkayo anoo qaldan baan ku dhalay dabeed waxaan galay jabhado dadkaan soo dili jiriyo dhacbaan kugu soo korsho war waxaa hore loo yidhi hal booliyi nidhig xalaala ma dhasho canugaad qaladka ku dhashay dhacaya isbaaradana ku korisay inuu bastoolad qaatoo dadka madaxa jabsho kadibna isqarxiyo adaa ka mas-uula warnimayo haddaad iska hadlaysaane xilli hore wuxuu yidhi allaha u naxariistay abwaan shariif soomaali haddaan weynay welad khayr qaboo waalidka xushmeeya miyaan weynay waagii baryaba wacalna tuuriyay xaaladda hadda taagan ayuu saadaaliyay abwaanku gurbu buubaal lanki haamanka horda haantu wiima ku furdee waleeri aryamahmaadu saas mahayna waxay ahayd balaaya ninkii rara haanta ugu weyn asaa kow kala degta cabdulma waxaad ula jeedaa ninkii tiin abuurtaa tiban ma gurto war saas mahayn heestuya waxay ahayd caashaqaan risoo riday aanka reesta loode sowmadiido geelaba war ma ahayn sidaa laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon war ma ahayna waxay ahayd laylay labadii walaalaa ninkii lacag lahaa weyn waryaadanu waxaan dhihi lahaa laxda shiika saar waa waxaan laabta galahayne waa midiga lilaahiya inay guurtay libintiiye soomaalay lur baan u dhacay talaha loo laab ebedkay wax kastaba aan maqle laxda shiika saar waa idhinet acuudu billaah war lankamayn lijeede heestiri lahay